السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرت دمانتي والسلامي إن شاء الله أبدي تفر بدن يا حالة السوقة أين دول استاجدونا هذين سلاجنا مركه هراء هالفينكي وحبا كمهارين أفر ساعدة وحبا كهري إن شاء الله تعالى وحوي إيفنت آدي أدو مهمة مركه لقى هذا السوق كريبتو كارنسيجا runtiina marka laga hadlay waxa loo barbardhigaa inuu yahay world cup-ka suuqa crypto marka insha Allah saameynta uu leeyahay iyo waxa laga filan karo suuqa wana dul istaagi doonaa inuu si aad iyo aad muhiima haddii isla eegno fear and greed-ka wuxuu marayaa area-da 60-ka ah runtiina meel dhexdhexaad ayuu ku soo dhow yahay coin-ka intooda badanna meelo wanaagsan ay runtii ay joogaan walaalihii qayb lacagtooda kamid ah kusoo invest gareeyay suuqa runtii waxa leeyahay hambalyo trade qurux badan lower time frame-yada waa laga faa'iiday gaar ahaan waliba shalay markii dagaalka Iran iyo Israa'iil u dhaxeeya shalay gantaala ay ku tuureen Israa'iil wadanka Iran runtiina imika waxaan arki karnaa newskan in wadanka Mareykanka uu sheegayo dagaalkii inuu dhamaaday taana runtii wax la filayay oo la sugayay baa ahayd inay Israa'iil ay ka jawaabto gantaaladii ay ku soo tuurtay Iran wadanka Israa'iil marka runtii waxaad moodaa mawduucaasi iyo filhindigaasi maartay inuu gabagabadii uu marayo insha Allah tacaala haddii wax ay isbedel u yimaadana waynu isla eegi doonaa qaabka uu saameeyo maartay suuqa haddaynu isla eegno bitcoin-ka runtii area-da 60,000-ka ayaa ahayd support aad iyo aad u adag ka horna waan ka hadlay bil ka hor fiid waan ka sameeyey walaalihii suuqa ka faa'iidan waxaa leeyahay hambalyo maasha Allah kuweynan aad iyo aad fara badan ayaa meel hoose la keenay -50 -60% runtiina waxa weeye suuqa marka ugu wanaagsan ee la galo walaalaha dhinaca TikTok naga daawanaya soo dhawaada iyo YouTube-ka waliba aad iyo aad bani salaamay haddaynu isla eegno ROI-da RIO da bitcoin-ka waliba marka laga hadlay dhinaca return-ka bil ahaan marka la eegayo waxaanu arki karnaa runtii April iyo March inay hore u ahaan jirtay gaar ahaan waliba March suuqayna hoosta loo soo rido kadibna April ina sarkac wanaagsan maartay suuqa laga dareemo marka labadii sanadood ilaa afartii sano u dambeysay hoos u dhac sida 2021kii waxaanu arkaynaa in 2% la soo daadin jiray suuqa marka bisha laga hadlay weeyaan 2022gii 22gii waxaanu arki karnaa in la soo daadin jiray bitcoin-ka 17% bishanna imika weli dhowr cisho ayaa ka hadhay ilaa 10% baa la soo daadiyey halvinkan waa ku beegan tahay runtii oo sidan sheegay waxay naga xiga 4 saacadood insha Allah ilaa 3 subaxnimo waqtiga Soomaaliya ayuu dhici doonaa runtiina sidan sheegay area wanaagsan ayuu taagan yahay bitcoin-ku 4 hour ka hadaynu ka eegno runtii waxaanu arkanaa in area-da 46 ilaa 64 ilaa 65,000 ay tahay resistant oo aad moodid maartay bitcoin-ka laga soo celin karo gaar ahaan waliba markaynu barbardhigno bitcoin-ka stock-ka wadanka Mareykanka oo runtii hoos u dhac cajiib ay ku yimi maanta saynu aragno hadday tahay maartay Nasdaq-ka iyo hadday tahay S&P 500-ka waliba dhinaca teknolojiyada stock-ka u hogaaminayay Nvidia hoos u dhac waalan baa ku yimi maanta akhirad soo dhawaada waan salaamay marka laga yaabo bitcoin-kuna inuu maartay asaguna hoos u dhac yar laga dareemo kadibna insha Allah wixii halving ka dambeeya suuqu uptrend uu isu bedelo haddaan weekly-gan tago taariikh ahaan waxa halving ka dambeeya haddaynu isla eegno runtii masaladan maartay khilaaf baa ka jira bitcoin-ku ma kor buu kaca marka halving-ka maartay ka hor inta ka horeysa iyo inta ka dambeysaba isoo wala soo daadiya saynu arkayno imika dhowrkii wiiga u dambeeyay hoos u dhacba bitcoin ku yimi ee suuqa cryptocurrency-ga
gaar ahaan bitcoin halvinga ka horeysay iminkana haddii life cyclekii aynu dib u raacno waxaanu arkaynaa bitcoinka intii ka horeysay ina dhowr iyo 60% lasoo daadiyey intii ka dambeysayna lasoo yara daadiyey ilaa iyo dhowr iyo 20 isla scenaarihii hadduu dhaco haddii dhowr iyo 20 lasoo daadiyo bitcoinka ilaa meelahan hore ayuu runtii iman karaa kadibna areada 50ga in laga dhaqaaqo oo buranka saa inugu bilaamo ayaa suurtagala shalay wall street waxay ka hadleen amba khubarada wall streetka waxay ka hadleen ina march 2025 sicirka faa'iidada lasoo dedejin doono marka runtii taasina waxa weeye maaragtay cabsi bay suuqa ku keentay haddaynu isla eegno xitaa khubarada economiga ku wanaagsan waxay sheegeen in laga bilaabi karo rate cutka September sanadkan marka runtiina taasi waxay maaragtay waafaqaysaa electionka oo asagu dhici doona November 2024ka marka inta badan wadciga iyo iqtisaadka waddanka Mareykanka waa inuu ahaado mid wanaagsan inta ka horeysa electionka madaxtooyada waddanka Mareykanka marka runtii taasi waxay noqon doontaa maaragtay event aad iyo aad muhiim ah oo la sugi doono insha Allah waan sugi doonaa taana marka ilaa September baa loo badinayaa in rate cutka la sameeyo xitaa September haddaynu eegno runtii waxaan arki karnaa in boqolkiiba 46 wax ku dhow ay isku raaceen la soo dejin karo rate cutka marka inta ka horeysa waa dhici karta iyaduna taana waxay ku xidhantay daatada soo bixi doonta iyo banka dhexe waddanka Mareykanka sidoo uu arko runtii waxa jirta iyaduna arrin muhiim ah oo S&P 500 iyo rate cutka marka la gooyo maaragtay sicirka faa'iidada suuqu qaabku maaragtay ula dhaqmo xadadka amba eventka ma soo daataa mise waa kaca inta badan ka hor waa soo daataa yani marka lagu dhodhooyo weeyaan arrinka marka sida halkan aan ku aragno historical ahaan chartyadan waa soo daataa oo waxaad moodaa imika in uu isu diyaarinayo suuqu in la soo daadiyo oo sida halkan aan ku sheegay September ay u badantay in la jariyo in la jaro maaragtay rate cutka marka waxaad moodaa suuqa iyo chartkan inuu isu waafaqayo taan runtii waxay ahaan doontaa maaragtay shay aynu wada sugi doono insha Allah ustaad Khaliil waan eegi doonaa